Ruud Gullet, Cristiano Ronaldo waa halyey carruur walba ku dayato, laakiin Messi waa hibo gaar ah. Halyeygii hore ee kubadda cagta Holland, Ruud Gullet ayaa ka hadlay dooda soo jiidashada leh ee ku saabsan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, isagoo bixiyay aragti cad oo ku saabsan waxa kala saaraya labada xidig. Messi mise Ronaldo? Anigu waxaan aaminsanahay in Cristiano Ronaldo uu yahay halyey saafi ah oo carruur walba ku dayan karto, sababtoo ah sida adag ee uu u shaqeeyey. Lionel Messi waa hibo dabiici ah sida Maradona, laakiin Ronaldo runtii si xad dhaaf ah ayuu u shaqeeyey, ayuu yiri Gullet. Gullet ayaa tilmaamay in safarka Ronaldo ee ka soo bilaabmay jasiiradda Madeira ilaa uu ka noqday xidig caalami ah uu ka dhigayo tusaalaha ugu fiican ee go'aan qaadashada dhabta ah. Shaqadiisa joogtada ah, tababarkiisa adag iyo isbeddeladii uu sameeyey intii uu ciyaarayay ayaa ka dhigtay inuu 5 jeer ku guulaysto Ballon d'Or. Messi dhanka kale wuxuu la barbardhigay Diego Maradona, halyeyga hibada dabiiciga ah ee aan caadiga ahayn lahaa. Gullet ayaa sheegay in halka Messi uu muujinayo dahab qarsoon oo dabiici ah, Ronaldo uu yahay waxa ay dadka ku gaari karaan dadaal iyo nafurnimo. dhinaca kalena, halyeygii hore ee Jarmalka iyo Liverpool Didi Hamann ayaa sheegay in kaliya 2 koox ay awood u leeyihiin inay xil ciyaareedkan tartan dhab ah la galaan Liverpool oo difaacanaysa horyaalka Premier League. Liverpool ayaa xil ciyaareedkii hore ku qaaday horyaalka 10 dhibcood oo nadiif ah, waxayna xagaagan ku xoojisay kooxda tababare Arne Slot ciyaartooy ay ka mid yihiin Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong iyo Hugo Ekitike, taas oo ka dhigtay koox si weyn loogu saadaalinayo inay mar kale ku guulaysato horyaalka. Inkasta oo aysan weli soo bandhigin qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa, haddana Liverpool ayaa ah kooxda kaliya ee wada badisay kuulamadeeda ugu horeeya ee horyaalka Premier League. Hamann ayaa ku tilmaamay Arsenal inay tahay hanjabaadda ugu weyn ee Liverpool, halka Chelsea uu sheegay inay tahay kooxda kale ee leh awoodda ay kula tartami karto Liverpool horyaalka. Arsenal ayaa 2 guul gaartay bilowga xil ciyaareedka ka hor inta aysan 1-0 kaga badinin Liverpool ciyaar xiiso leh oo ka dhacday garoonka Anfield. Sidoo kale Gunners ayaa suuqa ka soo qaadatay saxiixyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Victor Gyokeres, Martin Zubimendi iyo Nuno Madueke. Reds ayaa ku jirta meel ka sareysa fursadda lagu qaadi karo tartanka Champions League kooxda Arsenal oo fursadeeda lagu qiyaasay 16%, halka Paris Saint-Germain oo difaacanaysa koobka ay haysato 12.1%. Saadaashan ayaa timid kadib markii Liverpool uga soo adeegatay suuqa kala iibsiga si wanaagsan. Waxay la soo siixatay xidigo ay ka mid yihiin Florian Wirtz, Alexander Isak iyo Hugo Ekitike. Markii la isku daro saxiixyadan cusub iyo guushii ay Reds ka gaareen Premier League xil ciyaareedkii hore, Opta ayaa sheegtay in fursadooda Champions League ay si weyn u kordheen. Warbixintaas